halkaana aqalkii baa lagu furayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله Soomaaliyeed waa salaam dhamaantiin. Salaan kadib saaka reerku waa geedi awrka waxa la saaray waa karbaashkii waxba waa iska wada karbaash yani barigii hore waxba la saari jiray karbaash kabad qobtal waxyaabo badan baa la saari jiray balse dadkii inta badneed hadda waqtiyadan leesma hawlo labada shay oo karbaash oo iska wada noqonaya midna kabadun bay ka wadaan midna karbaashkii ayaa dadku saartaa awrta markii lagu guuriyay markii la dhaansanayaba marka saakay reerkii waa geedi dadkii Soomaaliyeed intii badneed reer guuraaga guga xilliga guga aan joogno ma wada helin oo dadku badidood hayaan ama geedi ayaa la wada galay meelo badan gobolo badan oo tagnay sida ay dadku wada guurayeen marka saaka xaafadan baan la kulanay oo geediya awrkii markii la soo saaray karbaashkii ama kabad sida u taqaanid ba yani wixii rarkiisii uu lahaa markii la soo saaray waxa lagu xijinayaa cawskii ama raradii oo aqalka yani aqalkii baa la saarayaa awrta horta aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo dad awr ku guuraya waayo awrtu waxay ka mid yihiin nabaad guuray ama yani dadkii ay ka gudbeen oo inta badan meelo badan oo tagay dadku ay ku guurayaan dameero iyo gawaari ama baabuur ay ku guurayaan balse halkaan uu joogo maasha Allah oo ka tirsan gobolkii Wardheer maasha Allah awrtii baa wali laga raranayaa awrka marka waxa la saaray hore waxa saan kugu soo sheegay karbaash buu ahaa wixii ugu horeeyay la saaray ana wax mar walba la saaro hadii la dhaansanayo hadii la guuriyo intaba mar kastaba la saaro kadibna waxa la saarayaa aqalkii baa lagu rarayaa reerkan marka sidii sheegeen ma ahan yani alaabtii oo dhan lagu wada rarayo aqalkay qaadayaan oo meel yani ama magaaladii kala tuuladii kala la geynayaa kadibna reerka alaab yar bay qaadanayaan aqalkii ayaa la qaadayaa oo meel la geynayaa yani canaabtiisa ayaa meel kale la geynayaa marka runtii waxyaabaha dhaqankii hore ka dambeeya awrtaas ayaa kamida oo dadku hadda ay ka howl fududeysteen raradii markii la saaray ama caws sida u garanaysay xarga yeel baa la yiraahdaa yeeshaas ayaa lagu soo xirayaa maadaama uu qof dumar ahay dhaqanka miyigana aan aniga laftigeyga ardayad ka ahay shaqadan waa shaqadii ragga hadda waxba qaar qaldo waxa weeye waad igu qaadanaysaan ama waxa weeye iima qabanaysaan baan ka wadaa waayo shaqooyinka dumarkan aad xoog u sii saaraa xarga markaa kale anu yeel baan u garanayaa inkastoo Soomaalidu lahjada ay ku kala duwan tahay ninka dhalinyarada ayaa xoog u xiraya oo adkeynaya awrka markii la rarayo lama rabo inuu leecleeco ama rarka hadhow ka daato marka waa la adkeynayaa xoog baa loo xirayaa dad badan ay daawanayaan way soo rareen awrka ama ratiga dad badan oo la soo saaray rimiigu marka awrtan ayaa gaadiidkooda ama haajireen waxa ay ku guuraan hadii geedi noqoto oo caruuraha la saaran jiray oo xaraha la saaran jiray oo yani wuxuu ahaa awrtu waxay ahayd gaadiidka kaliya waxa weeye ay haystaan halka dabagelis baa la yiraahdaa xarigii ayaa maxay tahay awrka saynta loo gelinayaa marka dabagelis baa la yiraahdaa marka Soomaalidu waxay ahaayeen awrta ay waxa ay ahayd gaadiid ay wax walba saartaan raashinka saartaan ku guuraan ku dhaansadaan ama biyaha ku doontaan laakiin dadku maanta anu sababta isweydiiyay waxay tahay dad badan oo reemiya dadka reetulaha oo kale matalan haba ka tagaan ama ka gudbaan laakiin dad reemiya waxa arkaysaa awrtii geeli haysta haddana aan intifaacsanayn waxa la yiraahdaa kabaala la yiraahdaa waa udbihii aqalka laakiin markii la saaray waa kabaala la yiraahdaa kulli sidaas oo garanaya horena waan ka cudur daartay waxba qaaradan qaldo sidaas ayaa loo xirayaa marka ugu horeysay saan soo aragnay hadii kabadii wixii la soo saaray awrku lahaa oo raradii lagu xijiyay xarga yeeshi lagu soo xiray kadibna kabaalada ayaa ku xigaya wixii kale ku xigayna waan arki doonaa kabaala ayaa la yiraahdaa marka dadkii reemiga ahaa awrtii runtii aniga awrta yani wax aad u fiican bay ila tahay
adduunka horta inkastoo xayawaan ilaahay abuuro uu yahay laakiin xayawaanka dameeraha loo yaqaano dee anugu kaama jecli runtii deegaanka ahaana markaan in badan arkay dadka uma roona deegaamada uma roona midda kale soomaalida dameerka xitaa isaga laftigiisaaba iska dulman oo waxa weeye waxaa arkaysaa meelaha qaar dameerada ama dameeraha kan waxay ka raranayaan kan ninka oo kale ayay ka raranayaan dameerihii kale markay iska bataan maxay tahay kale soo haray waxay noqonaysaa deegaankii dhan inay qabsadaan sababtoo dameerihii lama gadanayo lamana qalanayo marka intii dameerkii waxa weeye kii labka ahaa baa laga raranayaa dee dhadigiina wuu iska badanayaa marka waxaa dhacaysa marka in dameerihii ay deegaankii marka qaar la kaxeeyo la musaafiriyo la dhibaateeyo xitaa meelaha qaarba waxaan arkayay dameeraha in qaarkood ay si markaa ay u qaxaan ay u cararaan in dab lagu shidayo oo leeyahay dameeraha wadankii oo dhan bay qabsadeen waayo wax inta badan dee aada loo intifaacsada ama suuq la geysanayo ama inkastoo meelaha qaar ba ay lacag ka joogaan marka dadka runtii aniga waxaan dhihi lahaa haddiiba wax bedelayaan laga gudbayaan gaarigaaba dhaamaba dameeraha uma fiicna deegaanka kolley in meelo badan aan ku arkay marka dadka horta inta badanna waxay ku leeyihiin biyahoo kale dameeraha ayaa biyo ka awrku waa oonley hadda reerahan anigu aan arkaya awrta raranaya runtii anigu oon dhaaxaa kumaana arkin haaman bay haystaan jirgaamiya haaman waxbaa la saartaa awrka maalin kadib ama maalin dhaaf ama 2 maalin kadib dadku sidii hore maahan oo barkada u wada dhow marka reer kasta hadday barkadooda kasoo dhaansaneen awrka way ku dhaansan karaan waa la xirxirayaa kabaaladii baa la xirxirayaa si kastoo tahay anigu dameerada runtii way iga hor yimaadeen waa xayawaan ilaahay beeray laakiin markaan arkay sida ay yihiin deegaamada iyagiyo xitaa marka qaar oomana dee oon oonka u adkeysan karin oo meelaha qaar ay dhacayso dee inaan cidu waraabin oo dee sida dulmi looga galo dadka waxaan dhihi lahaa marka kolley reemihii inta badan imaba daawadaane awrtii ha lagu soo laabto haddii wax looga gudbayana waxa weeye ha looga gudbo gawaarida ama baawurta ha looga gudbo xarga halkaa awrka kaga jira caymin baa la yidhaahdaa waa umalaynaya ama waa la cayminaya kabaalada ayaa lagu xirayaa sidaas intaan filayaa caymin markaa kale waa iska shaqadii ragga de shaqadii ragga weeye ma fahanteen shaqada mar haddii halada mar horaan sidaa usii kala dhigdhigi lahaa inkastoo rag dumarka qaar ba ay jiraan awrta rara oo dee ragga kaliya ayna ku koobneen intaa kadib markaan soo aragnay cawskii ama raradii lasoo saaray aqalka kabaaladii waxaa ku xiga dhigihii baa ku xiga hadda waxaa la xirayaa waa dhigihii aqalka in badan dabcan waad garanaysaan horta dadka ugu badan wax u sheegaya waa ooba daawanaya waa dadkii miyiga kusoo koray laakiin in yar baa ku dhex jirta oo dhalinyaraha baa ku dhex jira oo weligood aan baadiye tegin waa intaan wax u sharaxayo laakiin dadkii miyiga yaqaanay reemiga sidaa wax u soo rari jiray anigu waxba idima sheegay deendhaha ka daawada waxaan qaldo oon keliya qoraal igu soo saxa waayo dhammaanteen waxbaan kala faa'iidaysanaynaa marka dhigihii baa halkaa lagu xiriyaa waxaa yeelay halkaa dhigaha ka lulan reerka horta waa reer cusub maasha allah sanad bay dhisan yihiin wiilkaa ayaa iskala reerkiisa ilaahay ha u barakeeyo maasha allah nin dhalinyaro waxaan ku yiri mustaqbal iyo nolol samaystay ilaahay ha u siyaadiyay dalkiisa ku samaystay marka waxaa dhigaha ka lulanaya waa sida ubaxoo kale magac bay lahayn waan iloobay meerax baa laga sameeyey reer miyiga guryaha loogu sharaxa markay arooska yihiin waxaa halkaa ka lulanaya waa geed meeraxdiis oo la aslay ama la mariyey dee waxaan dhigaha lagu geedkan cararka la yidhaahdo ama asasha u taqaanaan ayaa la geliyey kadibna aada buu qurux badan yahay hadda kahor aroos aan gudbinay magaciisu ku jireen waan hilmaamay markaa dhigihii baa lagu xirayaa aqalka sida idiin sheegay alaab lama saarayo oo reerku kuma wada guurayaan aqalkii oo keliya la saarayaa marka laga yaabay marka reerka dhan ay ku guurayaan inay sidaan xoogaa wax laga bedelo laakiin hadda waxaa la saarayaa aqalkii kore oo keliya ayaa la saarayaa oo sidaa lagu geynayaa tuuladii reerkuna hadhow alaab yaroo fudud reemiyiguna inta badan berigii hore anigu aan yaraa aqalada waa la wada qaadan jiray meeshii la tagaba aqalka waa lagu dhisan jiray laakiin hadda dadku meelaha ay deegaamada ku yihiin baraagahooda ama barkadahooda u dhow ayay aqalada ka dhistaan marka ay geedi gelayaan oo meelo kore ay aadayaanna aqalada waa laga tagaa yacni waxaa la diidayaa aqalka rarkaa badan baa loo diidayaa aan u malaynaya sidaa inay tahay markaa dhigihiina sidaas ayaa laisku dhaafinayaa iska barta dee ninkii miyi dega dhalinyaraha doonaya sida awrta loo raro waxaan rajeynayaa inuu janalka ama halkaa internetka ka dhex helo oo halkaa ka dhex daawado sida loo raro awrta loo raro sida dhaanka loo raro
sida aqalka loo dhiso wuxuuba dee duniyadan casriga wax walba googlaha laga raadinayo. Dhaqankeenana in googlaha laga raadiyo ayaan doonaynaa haddii Allah awoodda la idmo, oo dee qof kasta markuu u baahdo uu yiraahdo bal googlaha geli. Inkastoo miyiga laftiisa internet badan oo lahayn badina uu gaaray, wallaahi marka qaar waxaa arkaysaa dad reemiya oo dee Facebook ay u badan yihiin daawanaya. Marka adduunkii wuu hormaray, adduunka ka dambeeyana malaha wuu sii hormari doonaa haddii Allah awoodda la idmo. Marka asxaabta qaaliga maanta mawduuceena wuxuu ku saabsanaa geedigan buu ku saabsanaa, oo reerkii markaan u tegay maanta geedi bayba noqdeenba, ma fahanteen waddanka oo dhan wallaahi geedigaasaa la wada noqday. Sanadkan barnaamijyo badan oo ku hameynayay inaan gudbiyo, sanadkii hore aan soo gudbinayay aroosyo badan, waxaas aroosayba ma jiraan dadkii iyagoo abaar xun ka soo baxay haddana geedi baa lala kowsaday. Marka cidis aroostay cidis salaantana xitaa ma jirto, sanadkan aroosiga ma sugaysaane dadkii hayaan ka bixi laayihiin. Qeyr badan baa idin rajeynaya walaalaha, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa walaalaha Soomaaliyeed mar walba igu xiran ila socday dhiirigeliya dhaqankeenana. dee waxaan leeyahay aan dhiirigelino oo waxa weeye aan ku faano. Marka barnaamijkeena maanta sidaan buu ahaa. Reerku geedi bay ahaayeen. Reer miyiga waxyaabaan ku xasuusta waxay tahay reer sidaan oo kale markay arkaan inay dhahaan reerku saaka ma geediba. Marka reerku saaka geedi baa insha Allah meel qeyr sidaas iyo nabadiino.